daawadayaal qodobada wararka ugu waaweyn ee deegaanka TV ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha koonfur galbeed oo 3 wasiir magacaabay dowladda federaalka Soomaaliya soo saartay shuruudaha looga baahan yahay muwaadiniinta ku safraya duulimaadada caalamiga madaxda xisbiyada qaran oo ka soo horjeestay tallaabooyin ay qaadeen xukuumadda xilka sii haysa diyaarad qaad u sidii Puntland oo dowladda federaalka Soomaaliya ay hawada ka celisay wararkaasi oo faahfaahsan oo kooban waxa inoogu hormaray alamtara nasiib diin loo inoo soo koobaa madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa isku shaandhayn ku sameeyay qaar kamid ah golaha wasiiradiisa madaxweynaha koonfur galbeed ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu Faahimo Cismaan Cumar ugu magacaabay inay noqoto wasiirka haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka wareegtada ayaa Aweys Cismaan Xuseen Macalim lagu magacaabay inuu noqdo wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknoolajiyada koonfur galbeed madaxweyne Laftagareen ayaa Saalax Sayid Cali Shariif Nuur uu xushay inuu noqdo wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne Laftagareen ayaa isku shaandhayntan sameeyay xilli uu maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo sida uu sheegay u yimid wada tashi iyo arrimo ku aadan fatahaadaha xilligan ka jiro gobolka Shabeellada Hoose hay'adda socdaalka ee jinsiyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay shuruudaha looga baahan yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ka imaanaya iyo kuwa u safraya maadaama duulimaadyaha caalamiga dib loo furay 3 bisha Agoosto qoraal ka soo baxay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa waxa lagu sheegay in 3 bisha Agoosto dib loo bilaabi doono duulimaadada heerka caalamiga ah ee dalka ayna wax kasto si caadi u soo laaban doonaan hay'adda socdaalka ayaa sheegtay in dadka dalka soo galaya ay haystaan shahaado cadeynaysa in uu qabin cudurka halista badan ee COVID-19 una shahaadadaas qofka qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor dhammaan shirkadaha ka shaqeeya duulimaadka ayaa lagu wargeliyay macaamiishooda inay u sheegaan inay qaataan shahaadada cadeynaysa in ay qabin COVID-19 madaxda xisbiyada qaran ay ku mideysan yihiin 6 xisbi siyaasadeed oo hoggaanka u yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ka soo horjeesteen tallaabooyinkii ugu dambeeyay ay qaadeen golaha wasiirada Soomaaliya xilka sii haya war-saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa loogu baaqay madaxda sare ee dalka iyo golaha wasiirada xilka sii haya inay ilaaliyaan sharciga dastuurka xilligan lagu guda jiro kala guurka oo haddaan la garowsan uu dalka geli karo khalalaso siyaasadeed madasha xisbiyada qaran waxa ay ka soo horjeesteen magacaabista xubnaha guddiga adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga batroolka ee wasiirada xilka sii haya ay magacaabeen waxay ugu baaqeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xildhibaanada baarlamaanka inay ka shaqeeyaan ilaalinta nidaamka sharciga ee dalka u yaala xubnahaasi la magacaabayna aan la meelmarin karin maadaama dastuurka ku-meel gaarka uu ka soo horjeedo magacaabistooda dowladda federaalka Soomaaliya ee dib u celisay diyaarad wadeeqaad oo ka timid dalkani Kenya taasi oo doonaysa inay ka degto garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo sida ay sheegeen warar laga helayo magaalada Muqdisho diyaaradan oo 3 habeenimo ka soo duushay magaalada Nairobi ee dalkani Kenya ayaa aroornimadii hore saaka qorsho inay ka degto magaalada Gaalkacyo sidaas oo kalena waxay u gudbi lahayd magaalada Qardho sida ay sheegeen warar hordhac halkaasi laga helayo hay'adda la socodka hawada ee saadaasha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar ku bixisay in diyaaradan dib ugu soo laabato gudaha dalkani Kenya iyo halka ay ka soo kacdintay ayna tahay talaabo khaldan go'aanka ay sameysay dowladda federaalka ayaa wali fasaxin qaadka loo yaqaano mirooga ee ka taga dalkani Kenya waxaana talaabadan arbaxa kale oo xooggan ku noqonaysa beeraleyda qaadka ee dalkani oo aan wali helin in dib loogu fasaxo suuqyada qaadka ee Soomaaliya maamulka mirooga ee Kenya ayaa sheegay in celinta diyaaradani ay u geysatay dhaawac kale weyn oo dhaqaale bishii hore ayaa sidan oo kale dowladda federaalka Soomaaliya dib ugu celisay diyaarad qaad ay leedahay dalkani Kenya daawada halkaasina waxaa ku qodobada maanta wararka ee deegaanka TV waxa idin la socodsiinay aniga oo Magan Xasan sidoo kale antara nasiib diin leh ka qayb qaadanaya qodobo kamid ah inoo soo koobay halkan waa deegaanka TV ku xirnaa mar walba oo subscribe si aad ula socotid waxyaabaha muhiimka ah halkan aan soo gelin doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.